Bismillahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noola socotaan kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Thomas Tuchel oo afka furtay markii ugu horeysay tan ilaa markii laga ceyriyay shaqada kooxda Chelsea. Nicola Conte oo iska diiday heshiis cusub oo kooxda Chelsea ay u soo bandhigtay. Manchester United oo maalmo gudahood loo soo bandhigay 15 saxiix. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Erling Haaland oo magacaabay xidiga ka caawinaya la qabsashada kooxda Manchester City. Klopp oo iska diiday saxiix waaweyn isagoo ka doorbiday Darwin Núñez. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe iyo share garay si barnaamijkan asxaab badan u gaaro. Mahadsanidin. Thomas Tuchel ayaa afka furtay markii ugu horeysay tan ilaa markii laga ceyriyay shaqada kooxda Chelsea. Thomas Tuchel ayaa shaaca ka qaaday inuu aad uga xumaaday go'aankii ay Chelsea ay ku eerisay horaantii toddobaadkan. Subaxnimadii Arbacada, kooxda Premier League ayaa ku dhawaaqday in ay shaqada ka erisay tababaraha reer Germany kadib markii ay si xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkan. Inkastoo Chelsea 10 dhibcood ay ka heshay 6 kulan ay ciyaartay Premier League, haddana guuldaradii Dinamo ee Champions League ayaa sababtay shaqo ka erintiisa tababarahan. Maalmo yar kadib markii shaqada laga eriyay tababaraha ayaa ugu dambeyn afka furtay kana hadlay shaqo ka erintii lagu sameeyay. Tuchel oo arrintaasi ka hadlay ayaa yiri, tani waa mid ka mid ah orahyadii ugu adkaa ee aan abid qoro, waana mid aan rajeynayay in aan u baahanahay inaan sameeyo sanado badan. Aad ayaan uga xumaaday in waqtigan Chelsea waqtigayga mustaqbalka uu dhamaaday. Farxaddii iyo sharaftii aan dareemayay in aan kooxda ka caawiyay ku guuleysiga Champions League, Club World Cup waa mid weli ila joogi doonta. Sharaf ayay tahay inaan qayb ka ahaado taariikhda kooxdan. Xusuustii kooxda intaan joogay waxaan la gaaray guulo muhiim ah. Qalbigayga ayaa ku dhex noolaan doonaan taageerayaasha kooxda Chelsea, ayuu yiri tababare Thomas Tuchel oo shaqada tababarnimo kooxda Chelsea laga eriyay. Nicola Conte oo iska diiday heshiis cusub oo kooxda Chelsea u soo bandhigtay. Xidiga khadka dhexe ee Chelsea Nicola Conte ayaa iska diiday heshiis cusub oo kooxdiisa ay soo bandhigtay, iyadoo Blues ay doonaysay in xidigan ay sii haystaan. Nicola Conte ayaa muhiim ka ahaa shaxda kooxda Chelsea sanadihii ugu dambeeyay, isagoo qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda. Heshiiska Nicola Conte ee Chelsea ayaa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana kooxda doonaysaa in ay ku sii hayso xidigan khadka dhexe garoonka Stamford Bridge. Chelsea ayaa Nicola Conte u soo bandhigtay heshiis cusub oo 2 sano ah, laakiin xidiga khadka dhexe ayaa iska diiday heshiiskaasi. Xidiga 31 sano jirka ayaa doonaya in Chelsea ay u soo bandhigto heshiis intaasi ka badan, maadaama uu weli aaminsan yahay in kooxda uu ka caawin karo ku guuleysashada koobab kale. Haddii uu xidiga Nicola Conte u saxiixi waayo heshiiska cusub ee kooxda Chelsea inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, waxa uu qaab xor ah uga tagi karaa kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan. Manchester United ayaa maalmo yar gudahood loo soo bandhigay ilaa 15 saxiix. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in loo soo bandhigay fursad ay kula saxiixan karaan in ka badan 15 ciyaartoy hal toddobaad gudihii intuu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. United ayaa ku fashilantay xidiga Adrien Rabiot iyo xidiga loogu magacaabo Marco Arnautovic xilli ay kooxdu ku fashilmeen in ay iska diraan xidigaha aan doonayn in ay sii joogaan kooxda. Si laga soo xigtay Fabrizio Romano, United ayaa loo soo bandhigay in ka badan 15 ciyaartoy toddobaad gudihii. Qaar ka mid ah magacyada loo soo bandhigay United waxaa ka mid ah xidiga lagu magacaabo Weston, kaasi oo Juventus doonaysay inay iska iibiyaan si ay uga soo iibsadaan xidiga kooxda PSG ee Paredes. Daafaca midig ee Barcelona Sergio Dest iyo xidiga Borussia Dortmund ee Thomas Muller, kaasi oo sidoo kale loo soo bandhigay, iyagoo tababare Erik ten Hag suuqa ugu jiray daafac midig oo cusub. Yannick Carrasco iyo xidiga lagu magacaabo Lozano ayaa sidoo kale ka mid ah xidigii loo soo bandhigay kooxda United intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ee xagaagan. Erling Haaland oo magacaabay xidiga ka caawinaya inuu la qabsado kooxda Manchester City. Xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City, Erling Haaland ayaa sheegay inuu si fiican ula qabsanayo kooxda Manchester City. Erling Haaland ayaa shaaca ka qaaday xidiga ka caawinaya inuu si fiican ula qabsado kooxda Manchester City, isla markaana uu la leeyahay xiriir aad u fiican.
Manchester City waxaa jooga dad fiican, waxaan leeyahay asxaabo si fiican ii garab qabta. Kaliya waxaan halkan joogaa 2 bilood, sidaas daraadeed weli waan ku cusubahay magaalada iyo kooxda, laakiin waxaa jooga dad aad u fiican oo si fiican ii garab qabta. Waxaan xiriir fiican la leeyahay Phil Foden maadaama aan isku da'nahay, isaga ayaa i caawinaya, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Haaland ayaa dhaliyay 11 gool 7 kulan oo u saftay kooxda Manchester City tan ilaa bilowgii markii uu yimaaday kooxda Manchester City. Warbaahinta Sportska ayaa sheegaya in Nunes uu yahay cilada muuqata ee guulihii Klopp ee suuqa kala iibsiga ee sanadihii ugu dambeeyay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in milkiilayaasha Liverpool ay ku jahwareereen markii Jarmalka uu meesha ka saaray walaac kasta ee ku saabsan weeraryahankan iyo in Klopp uga digay shaqaalaha kooxda in halis uu ku yahay. Maamulka Liverpool ayaa Klopp soo bandhigay in ay midkood u keenaan xidigaha Mason Tottenham iyo xidiga Robert Lewandowski kaasi oo ka tagay kooxda Bayern, laakiin Klopp ayaa ku adkaystay in uu doonayo saxiixa xidiga Darwin Nunes kaasi oo qaab ciyaareed xun ku bilowday xilli ciyaareedkan. Nunes ayaa kaliya dhaliyay 1 gool 4 kulan oo uu ciyaaray dhammaan tartamada oo dhan, isagoo iska khasaariyay fursado badan oo cajiib ahaa. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like noo saar, subscribe, share, barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina.